bismillaah saaxiibayaal soo dhawaada. waxaan rabaa inaad la wadaagto maanta application muhiim ah kaasoo dhalinyarada ka caawinaya in ay diyaarsadaan qorshooyinkooda nololeed haddii ay ahaan lahaayeen qorshe maalmeed, qorshe bileed iyo qorshe sanadeed. guud ahaan waxaad ku dejisan kartaa ahdaaftaada iyo gooliska aad rabto inaad gaarto mustaqbalka. sidoo kale waxa uu fududeynayaa in uu ku diyaariyo reports ku saabsan waxyaabihii aad soo qabsatay, waxyaabaha ku dhiman iyo waxyaabaha processka ama shaqooyinka markaasi aad ku guda jirto. applicationka magaciisa waxaa la yiraahdaa Notion. waa applicationkan magaca applicationka halkan ka muuqdo. waa applicationkan magaciisa waxaa ku qoran Notion. marka aad rabto inaad la soo degto qaab fudud ayaa ula soo degi kartaa. waxaad ku dhufanaysaa Play Store-ka Play Store-ka marka aad ku dhufato waxaad qaybta searching-ka ee Play Station ayaa waxaa ku qoraysaa waxa loo yaqaano Notion. marka aad ku qorto waxaa kuu soo bixi doona Notion. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah notice ayuu leeyahay, wax inaad wax ku qorato, documents ayuu leeyahay, sidoo kale tasks shaqooyin kala duwan ayaad ku qoran kartaa. marka hore waxaad leedahay install. aniga hadda wuu ii soo degsan yahay oo waxaan leeyahay open. marka aad furato shaqooyin fara badan iyo waxyaabo fara badan ayaad ku qabsan kartaa. note ayaa si degdeg u qoran kartaa, personal, home, to do list, journal, readiness, mid ayuu dul istaagi doonaa. casharo ayaan kasoo sameyn doonaa haddii la yiraahdo. balse waxaan rabaa marka hore inaad ila ogaataan applicationkan iyo faa'iidada faraha badan uu leeyahay. waana baari kartaa, waad soo ogaan kartaa muhiimadda uu leeyahay applicationkan loo yaqaano Notice-ka ama Notion-ka. kusoo dhawow qodobkan uu faahfaahsan waa idiin soo wada insha Allah la socdo.